ويسعى هذا تماش من مكان كل جلال جاي يجيبه ما يحصل. كلها جهنمك هاي فوش حما إلهي فشلي دولة تركيا ولا عليها مسلم كا صاحب بدنا كبد بادين إلهنا ما هبانو علينا مركز التحاد وحان ما هدو علينا قرن كصوماليات وإذنتي أهريسي انقلابيين تلا عمباري سوجيدي ودلك تركيا oo wax walba inaga dhaxeeyo garab istaagin oo adduunyadii oo dhan ka hormaray taasna mahad baanu celinaynaa waana ku bogaadinaynaa waana ugu hambalyaynaynaa aad bay qiiqaali u tahay mar walba si degdega maaragtay in tallaabada ku habboon ama ereyga waqtigiisa la joogo in la sii daayo aad ayay u fiican tahay marka la fiiriyo marka la fiiriyo taariikhda islaamka ee la soo maray waxaa jiri jirtay khilaafadii cismaaniga ahayd ee turkiga oo dunida muslimka oo dhan xukumaysay انقلاب قادة سواء بابولين أيها القدمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الظلم من ظلمات يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. صوماليا هكو ليستو تركيا هكو ليستو مدحوينيس هكو ليستو مدحوينه عنك هكو ليستو صوماليا هكو شعب الجميع
ورحمة الله وبركاته. Ey Afrika'nın kahraman insanları, ey İslam'ın güzel insanları, bugün Türkiye'de meydana gelen ve Türk halkına rağmen yapılmaya çalışan kalkışmayı protesto için buradayız. Ve açık bir şekilde Somali halkının Türk halkına olan desteğini görmekteyiz. ugu horreyn geesiyaashii Afrika Soomaaliya waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa waxaana aad ugu faraxsanahay soo baxan adlaanaysa taageerada aad Bizi birbirimize bağlayan bir tek şey var. O da Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu İnnemel mu'minine ihva düsturu. Biz bunun için buradayız ve bundan sonra da burada olmaya devam edeceğiz. anagana waxaa jiro shay masuka xiraaya oo ah inama almu'minuuna ikhwa inay dadka mu'miniinta yihiin dad walaala ah saas daraaddeed ayaan halkan u joognaa. Yine Yüce Allah, Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ümmetim bir vücudun uzuvları gibidir. gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ku-xigeenadiisa culummada sharafta leh akhyaarta kale saraakiisha dadkan ku soo baxay oo muslimiin Soomaaliyeed rag iyo dumarba saxaafadda dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaantaas kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan ku mahadinaynaa kulankaani soo baxan uu galladaystay. warka waan soo koobayaa walaalayaal waxaan iskuulii waxaa weeye annagoo cabbirayna dareenkeena islaamnimo annagoo cabbirayna dadka madluumiinta oo la gardarraysanayo inaan garab istaagno taageerno annagoo cabbirayna dadka daalimiinta ah oo gacanku-dhiiglayaasha ah inaan ka dhannahay oo ka soo horjeedno oo cambaaraynayno. waxaan aad iyo aad u bogaadinaynaa mowqifka dowladda Soomaaliyeed madaxweynaha iyo gobolka Banaadir iyo dhammaan xukuumaddu ay qaateen oo ah inay cambaareeyeen inqilaabka dhicisoobay. cadowga turkigu ha dhaco madaxweyne xasan sheekh ha guulaysto madaxweynaha turkiga ordigan ha guulaysto. waxaa wasiirada gaar ahaan wasiirka u qabtay arrimaha diinta iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir culumowdiinka shacabka qiimaha badan halkan iskugu yimid golaha wasiirada iyo baarlamaanka dadka halkan nagala jooga dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib waxaa farxad maanta noo ah in isku day fashilmay oo khiyaana ay ku jirtay ay ka guulaysteen walaalaheenna dalka Turkiga shacab iyo xukuumadba. taasina waxay namuudaj iyo tusaale ay u tahay awoodda shacabku inay awood walba ka sarrayso, awoodda shacabku inay xabbadda ka sarrayso, awoodda shacabku inay muruqa iyo aragtida iyo dhinac walbaahi awoodda ugu sarraysa koonka ay tahay, awoodda shacabku inay badaha qahri karto, awoodda shacabku inay tahay awooddii culamada Soomaaliyeed ururada bulshada kala duwan madaxda tiirka bacda saxaafadda baaweynta Soomaaliyeed ee shaqalka Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir hortiina taagan dhammaantiin waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaantaa kadib muddo badan ayaa la taagnaa haddana inaan dhaqaaqno ayaan rabnaa u dhaqaaqno dhanka safaaradda annagoo u muujinayno shucuurta inaan la wadaagayno. marka waxaan dhihi rabay ragga hadla ayaa ii yidhay wax aniga ka duwan oo sheegaya ma laha, laakiin waxaan uga mahadcelinayaa shacbiga degan gobolka Banaadir magaalada Muqdisho siday u muujiyeen shucuurtooda iyo taageeradooda ay ku cambaaraynayaan afdembigii dhicisoobay ee ka dhacay waddanka Turkiga.